waa shir ballaaran oo iskugu yimaadeen dhammaanba madax dhaqameedka waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka haldoorka iyo dhallinyarada beesha Jibriil Abukar ee Muuse Dhariyo kaas oo ay kaga tashanayaan yahooda iyo wada shaqaynta beesha dhexdeeda waxaana kulankan oo muddo socday laga soo saaray qodobo dhowr oo muhiim ah waxaana akhriyo faahfaahin ka bixiyay suldaanka guud ee beeshaasi Suldaan Maxamed Muuse Abu Sufyaan kaas oo isla markaasina soo qabanqaabiyay kulankani gogoldhigiisana lahaa warweynaheenan aanu qabsanay haddii aanu nahay beelweynta Jibriil Abukar ama Cali Abukar hadba sidii loo yaqaano reer Sheekh Muuse Direed ama Muuse Dhariyo taariikhdu maanta ay tahay bishii koobaad 3keedii 2022 waxaanu isla qaadanay qodobadan halkan aan insha Allah ku xusi doono haddii alla yiraahdo heshiiska guud ee maktabeelaha Jibriil Abukar Muuse Maxamed Muuse Dhariyo annagoo jecel walaaltinimada iyo wadajirka annagoo jecel wadaaga makta iyo waxa weeye hiilka halka waxaan ku cadeynaynaa annagoo ah beesha Jibriil Abukar Muuse Maxamed Muuse Dhariyo kala ah beesha kala ah jilibada kala ah waxa weeyaan reer Kacase reer Seed Gaboobe reer Ducaale iyo inta kale runtii ay wakiil ka yihiin maadaama jilibadaas ay waqooyiga u badan yihiin haddii aanu nahay beelweynta Jibriil Abukar inaanu ku heshiinay qodobadan hoos ku xusan in makta saddexda jifo in makta Jibriil Abukar ay ku qaybsadaan qoraale labo makta reerku qaybsanaya waa makta heshiiska ee la xaqo ee qoraal sharciya laga sito saddex in lagu heshiiyay laga bilaabo heshiiskan dabadii wixii mag ah ee hortii baxay inaan fagaaraha la keeni karin oo aan loo haysan ee dhammaaday wixii heshiiskani ka dambeeya ee dhiig ah ee yaala aan laga heshiin waxaa lagu dhaqayaa xeerkani afar in makta reerka Jibriil Abukar ay iskugu yimaadaan oo ay wada qaybsadaan 3 halaad wixii ka badan 5 in haddii ay 3 halaad maktu noqoto ama ka yaraato 3 jufo ay gaar iskaga bixinayaan in dhiiga reerku uu soo hoyda 3 meelood oo meel tolku yeelanayo akoonka tolkana lagu shubo 7 in dhiiga tolku yeesho lagu bixin karo oo kaliya dhiig tolka loo haysto 8 in dhiiga tolka laga ururinayo kaliya ay ururinayaan guddi ay reerku u xil saareen guddidaas oo ay cuqaashuna ka mid yihiin 9 in guddida reerka ee magta ururinaya ay rasiid u jaraan cid kastoo ay magta ka qaadaan rasiid la'aanna mag aanay qaban karin 10 in magta laga qaadin dadka barlaawayaasha ah sida qofka waalan qofka xanuunsanaya ee wax amal haynin iyo agoonta aan qaan gaadhin karayna inay magta iska bixiyaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasi kadib qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka haldoorka iyo dhallinyaradii ka soo qayb galay shirka ayaa sii adkeeyay qodobada la carabaabay haddii alla ka dhigo waanu raacsanahay suldaankayaga waananu iskarab taaganaa waananu la shaqaynaynaa sidaa fiican ee uu maanta suldaanka iyo cuqaashi aan isugu xidhannay burca iyo berbere iyo ceergaabana inaanu haddii alla ka dhigo wafdi loo saaro oo haddii ilaha yidhaahdee go'aanka halkaa loo geeya ayagana wax kasta maqsad iyo ujeedu leey waa horumarinta reerka arinta meeshan loo fadhiyaa heshiisyadani hore u dhaceen maanta meesha laga duulayeen anigu gudoomiye ahaan jeclahay inay hormarto aan diiradda saaraya waxa weeye dadkaasi wixii ay isla qaateen inuu ficilku raaco oo uu rumoobo waa taa talay igmaday marka inuu nin waro ay isla kaay soo gasho shaqadu imika waxaan uga sii digayaa inuu hoggaansamo arimaha qaaraan ururinta waayo anigu waxaygu ma yeelaan maartay intaasaan uga digayaa dadka inay qaaraanka ka run sheegaan insha Allah ilaahayna waxaan bariyayaa in ilaahay inoo aqbalo niyadeena wanaagsan ee meesha ku kulanay waxaan anigu xogayaha beelweynta Jibriil Abukar wixii tolku igu ogiyo ilaahay igu ogiyo mooyane wax kale kama dhawaajin kara anigu
waxaana la ii igmaday in wixii xaqiiqa aan ka hadlo xogteediina waan hayaa xaggaasaan ku hayaa wixii kale lay soo gaarsiiyana waan ka dhawaajinayaa war anigu waxa dareenkayga aan ku darayaa shirkaasaa la isugu yimid ee maanta loo urursan yahay inuu wax midho dhala uu noqdo oo toosa arrinku waa inuu noqdo arrin midho dhala haddaan nahay guddidii reerku ay iska soo dhex saareenna inaan waajibka aanu leenahay gudanno ayaa ilaahayna nagu ogyahay tolkana hortoodaanu ka caddaynaynaa wax xaqdarra ah ama waxaana loo intayna inaanu ilaalinayno iyo sharciga iyo go'aankaanu dhigannay run ahaantii waxaan kula talinayaa dhallinyarada waxaan kula talinayaa inayna arrinkan fudaydsan waayo arrinkani wuxuu midhodhalkiisu wuxuu noqonayaa inaynu dhasheennu ay anfacdo waxaweye ilaahay baa mahadle mahadda intaasoo tolkaya oo maanta iskugu timid halkaa mahaddaa ilaahay baa iskale way israacday way dhammaatay ilaahay khayr ha noogu dhammeeyo way ku dhammaatay ilaahay waxaanu ka baryaynaa si wanaagsan kuwii gacmaha isku haysta arrinkaa dhammaaday kuwii fuliya inaanu ahaano waxa maanta ilaahay mahadiyo mar haddii ilaahay maanta meel isugu kaaya wada keenay oo maantaan arrin go-aana soo wada gaarnay in ilaahay nala qabta maanta sidaa si saxan asala ilaahay si saxan noogu wado ilaahay khayrna nooga dhigo qaybihii dambe ee shirka ayaa waxaa lagu soo gunaanaday laguna soo gebagabeeyey fariimo loo diray qurba joogta beesha dardaarano ducooyin iyo waanooyin dhaxalgala horta waxa weeye dembigeenna allaha dhaafo waxa weeye maanta way dhalatay ilaahay ceebteenna ifkiiyo ceebta aakhira allaha asturo waxa weeye midnimada aynu ka dhawaajinay sanadka dhan socotana tii taama gasho allaha ka dhigo waxa weeye waxaan leeyahay qurba joogtana warwakaasoo maanta jibriil abubakar isku tashaday in maadagna waxaad leenahay kabahaad ku barashaysataan $100 $100 calaa qof waxaan uga rabnaa $100 inay noo soo diraan waana salaamatiin waa idiin soo ducaynaynaa farxadda saaka inaga muuqata waa mid aad iyo aad u wanaagsan waa wax lagu farxo ilaahayna waafajiyo tawfiiqda aynu maanta qaadada ilaahayna waafajiyo ilaahay noo rumeeyo ilaahay kuwii wax ku qabsada ee wax ku talansada ilaahay naga dhigo inta baraca ku dhicin ilaahay haynaga dhigo oo ilaahay khilaafka haynaga ilaaliyo ilaahay boggeena buraada iska mariyo ilaahay wixii afkan ka yar dhigaya bannaanka ka keena aamiin dhah dembigeenna allaha dhaafo dacwaadkeenna allaha aqbalo saacatul ijaabada allahayna waafajiyo muraadaheenna oon macsi lahayn midigta allahaynaga siiyo tolkii gacmaha isqabsada allahaynaga yeelo tolkii gacmaha isqabsada allahaynaga dhigo tolkii tawfiiq iyo muwaafaqo hela ee yeesha allahaynaga dhigo kuwa cadowgooda meel uga soo wada jeedsadaa ilaaliyana ceebahooda ilaaliya allahaynaga dhigo nebiga fadligiisa faataha waariya nebigii maxamed ha ku salliya dembigeenna allaha dhaafo ka waalidkeenna allaha dhaafo ka waalidiinteenna allaha dhaafo inteennii dhimatay allah u naxariisto inteenna noolna allah uga daba naxariisto waa dariiqaa iyo tubta aynu jeexnay ilaahay baa inagu garab qabanaya bilxaqi subxaana rabbi ka dhaha halkan in yaroo dardaaran baan ku soo koobayaa tolka iyo beeshan maanta isku timid alla tawfiiqda ayna wada garasiiyo rag dhammaanteenba iminkana waxaan leeyahay maanta aad iyo aad baynu qurux badannahay rabbina aynoo sii aqbalo ilaahay dembigeenna ha dhaafo ilaahay muqaalfada alla inoo keena allah inoo aqbalo ilaahay waxaaynu isugu nimid ururkaa aynu isugu nimid ilaahay inoo wanaagga iyo khayrka allah inoo waafajiyo waxaan leenahay saa odayaashii iyo cuqaashii waxgaradkuba sheegeen aynu midnimada ilaalino waxaynu ku heshiinayna fulinteedana aynu ku dadaalno u dhabar adeegno howlo badan bayna sugaya waxa weeyaan maanta tallaabo aad u qiimo badan baynu qaadnay muddo dheer baynu soo wadnay waa guul weeye waa gobonnimo weeye waxaan leeyahay beelweynta jibriil abubakar ama cali abubakar saa u taqaaniin waxa weeyaan muuse dheriyo maanta waa cusub baa idiin baryay insha allahu heeryadii waa iska tuurteen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka dhigo kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca waxaan intaa ku darayaa oo aan la hadlayaa aqoon-yahankooda qurbajoogtooda waxgaradkooda waxaan leenahay tolkin iska rabtaaga waxa weeyaan magaca wuxuu qiimo ku yeelanayaa hadba intaa midaysan tihiin tolnimadu waxay sharaf leedahay inta aad ishaysataan ilaahay baa yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaa idinkula dardaarmayaa in ilaahay ka baqataan inaad salaada ilaalisaan inaad ilaahay cabsidiisa kor u qaadaan inaad noqotaan dad aakhiro ku xisaabtama salaad la'aanta ka dheeraataan baan idinkula dardaarmayaa ilaahay waxaan ka baryayaa keena buka allah shaafiyo
keena deenka caabanay allah ka dulqaado wixii khalkhal iyo khilaafa allah inaga hayo عيب يا عيد الله ينقفقيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين